بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن حرت عاشق جوب كسي جول كستا جوكتان وبرنامج كان يفتمينتا ما أنت برنامج كان وحدل هجنيا سيد عبد الله دني عيبتي جرو كدعضي جروه عيبتي كدعضي يا سعيد عبد الله دني ودقن نصيب لأهانشري بل سام ما أنت نصيب كنا جرب كيسي كبحي qodobka ayaan doonayaa in isdul taago iyo maxaabiistii dhalinyarada ahaa ee mujaahidiinta ahaa ee iyaguna waxa weeye gacanta cadowga ka soo baxay iyo dhacdadii garowge ka dhacday ayaan si fiican maanta u falanqeynaynaa barnaamijka haduu soo gaaro si shargar hadii salaad ku joogtana u soo tukabadayna gelin hadii kale nabi ku salli allahumma salli ala sayyidina muhammad waayahay qodobkeena koowaad horta waxa ilaahay mahadiisa oo waxa weeye yaan ilaahay ku jar ugu mahadinaya in dhalinyaradii maxaabiista ahaa ee Cabdimudalib iyo Cornel Arsaday ugu horeeyeen ee waxa weeye gacanta cadowga ka soo baxay ee waxa weeye maanta nabad deegaankeena iyo dhulkeena iyo magaalooyinkeena nabad ku jooga oo ku daashadaashoonaya waa mujaahidiin nool weey aad baan horta arrinka u soo dhaweynaya waana arrin farxad leh waa arrin gobonimo leh falanqayntiisana barnaamij dhan oo arrinkaas iyo ilduufka meesha ka dhacay iyo gobonimada aynu helay haddaynu nahay waxa weeye harti macnaha eegay gobonimada aynu helay iyo challenge aynu helay barnaamij wuxiga ayaan ku falanqayn doonaa balse waxaan rabaa doqoniinada Saciid Cabdullaahi Dani iyo mangaabnimadiisa eegay iyo doqoniinadu halka ay la martay maanta inaan hooga tusaaleeyo wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam unsur akhaaka daaliman aw madluum walaalka haduu khaldan yahay khaladka ka qabo waa hilo haddii laga khaldan yahayna cid ka khaldan ka qabo labadoo waa hilo Saciid Cabdullaahi Dani horta maanta ciduu taagan yahay waxa u baxaysa wahey waaqlaan u baxayo cidlaan heehabaya waaqlu horta waa cidla ciirsulug maanta taagan yahay waxaana keenaysa siyaasad xumadiisa siyaasaddu aqoon bay u baahan tahay rogrogid bay u baahan tahay hadba dhinac ka istaag bay u baahan tahay barashay rabtaa waa cilmi la barto oo waxa weeye intaas oo fanile oo jaamacado looga soo baxo qof ilaahay u dhaliyo aqliga iyo hogaankana waa jira haduu wax barasho si siyaasadana ka wasi fiican Saciid Cabdullaahi Dani siyaasadda mana baran eegay shakhsiyad ahaan nin hogaan u dhashay inuu hogaamiye ma aha balse waxaan rabaa arrin kale oo khusuusi ah inaan si fiican isu dul taago Saciid Cabdullaahi Dani daraad waa tuu meesha fagaaraha soo istaagay waa daraad 2 daqiiqo gudahood ayuu warsangeli iyo dhulbaahante iyo ogaadeen 2 daqiiqo gudahood ayuu kaga dhaxbaxay oo garabkoodii ku baneeyay waa 2 minute buu cidlo ku soo istaagay taa waxa si dheer oo iqarso oranaysa wuxuu yiri tii horaan hibanayay tanna may hortaala daraad aydi iyo idor leefleefki iyo Somaliland iyo naqnaqi iyo waxa weeye khaatumacaygi iyo waqraysa nimankii warsagaliya halka degnaa ceerigaaba magaalo dhan oo ceergaaba la yiraahdo oo gacanta ka baxday oo maatadii deganayd iyo dadkii deganaa la soo qaxiyay oo xabad lala dhacay oo la yiri calmiskaad baa la aadaya dagaalka calmiskaad baan ku jirnaa kadibna ceerigaaban u soo jeesanayna ayaa markii dagaalka calmiskaad soo gabagabay intuu mayg qaatay oo maqlay ninkii Xasan Haaba lagu soo khasbayaayo beesha caalamku soo khasbaysaa buu yiri Somaliland iyo door weyn masiirkooda inay ka tashadaan waa dagaalkii ceergaaba saas ku dhamaaday leef tiim ogeydin mid ka daran ba hadaba timi ninkii garaad cali garaad jaamac waa garaadka guud ee beelweynta Daarood Ismaaciil waa haliyeyga aad garanaysaan waa ninkii Saciid Cabdullaahi Dani soo saaray ilaahay ka sokow Saciid Cabdullaahi Dani inuu mar labaad madaxweyne Puntland ka noqdo waxa sabab u ahaa garaad jaamac garaad cali ninkii hooyadii caayay odaygii shuweeliyaha qaadan jiray jijimaha qaadan jiray sida cadradaha eegay been madow loo oran jiray iidoor habar jeclo ayaa Hargeysa ka soo wacay Dani waxa idin sheegaya Dani waa caadifi qofku haduu caadifi yahay oo qalbiga ka taliyo waa sida cabaad weynto kale cabaad weyntu waa dad qalbiga ka taliya waa caadifin
waxa yar haddaad hormarso waa qiiroonayaan dhulku sadhacaya waa ooyayaaba waxa la yiri hindida iyo eeshiyaanku madaxa ma joojiyaan qofka hindiga ah ama eeshiyaanka ama bangladesh ama bakistan haddii qoorta wax ka gaaraan weligeed ma bogsooto sababta madaxaasaan fadhiisin karin areeha aree baglo bagla tumara bolgaya aree saara duniyaha goor fadhiisan intaasaan kurka ah ma joojin karaan abaadweyntuna caadifada ma joojin karaan inina waa caadifiste waa qof caadifad ku dhisan qofka hadduu caadif yahay oo waxa indhihiisa ka hor muuqda kaliya uu go'aan ku qaato wuxuu fahmi kara ma waxa soo wacay buur madow wuxuu yirniyo anna waxa soo raacaya maxaabiista si Abdullaahi Dani buur madow ha kaale garowe nimankii mujaahidiinta ahaa ya Cabdulmudallib iyo Aarsade buu isku soo nabay buur madow Dani baana u yeeray waa ninkii garaad jaamac garaad cali garaad jaamac hooyadii caayay ee dhilo ku sheegay isagana ilmusina ku sheegay yiri aabihiiba hooyadii loo daba maray ilaahay baan idinku dhaarshay hartiyow oo daaroodow oo Soomaaliyay waliba khaasatan hartigaan la hadlaya waliba khaasatan daarood Ismaaciil baan la sii hadlaya dhaqan isinku meeshu inaga joogo inagu was ognahay waxa isimadu inoo yihiin iyo meesha ay inaga joogaan waynu ognahay ma idinla tahay maanta madaxweyne Firdhiye nin isin hartiya caayay oo hooyadii dhilla ku sheegay oo maanta boqor Burhaan ama waxa weeye Suldaan Saciid ama Ugaas Xasan hooyadii dhilla ku sheegay oo yiri in masina tahay inuu laascaanood ka soo degi lahaa waliba boqor buur madow wuxuu leeyahay halkan waxaan ka jeclaan lahaa Daniyo anigoo laascaanood ka degba iga si farxad badnaan lahay daniga leefleefaya boqor buur madow oo garaad jaamac garaad cali garaad jaamac hooyadii caayay oo ilma zina ku sheegay sida uu leefleefaya buur madow wuxuu leeyahay ag joogidaada waxaan ka jeclahay maanta anoo laascaanood joogo garaad jaamac garaad cali aan ag joogo ba iga qurux badnaan lahay deego ila deego way ka qurux badan lahaayeen haddaan abtiyaashii la kala wareegi lahaynoo ay maanta ahaan lahayd reer laascaanood iyo reer hargeysa ama reer burca ay la kala wareegi lahaayeen sidaa loo soo sagootiyey way ka qurux badnaan lahayd waan jeclaan lahaa maanta tanoo kale anoo laascaanood ku horeeya oo geeya haddii aan laba leeyahay korneyl maxamed jibriil iyo xildhibaan faarax iyo raggii lahaa anoo wada faan bay ahaan lahayd inaan geeyo iyo sharaf faan bay ahaan lahayd sharaf bay ahaan lahayd waan ka sii jeclaan lahaa sidan way ka sii qurux badnaan lahayd waxaan rabaa hilmaan hadalka kuma jire halkan inaan hambaliyo gobannimo salaan sharaf eegay salaan isin duco inaan halkan u mariyo Suldaan Saciid Maxamed Garaase Suldaan Saciid Maxamed Garaase Suldaan Garaase ilaahow cimriga ku barakay geeridu ha ku ilowda adeer ayaama sii joog adeer ilaahay nolosha ha inagu kulmiyo maalin ay noqotaba biidnillaahi tacaala gurigaaga waa kugu imanaya insha Allah maalin ay noqotaba Suldaan Garaasow madaxa waa ka dhunkanaya waa kulmayna Suldaan Garaase wuxuu diiday waa nin Ciise Maxamuuda oo Abubakar Ciise waliba waxa la sheegay nimanka dhalinyarada ay meesha mariyay maxaabiista jifi ahaan in suldaanku waxa weeye nimanku suldaanka u ahaaye uudi inuu yihiin Suldaan Garaase waa suldaan hartiyeed waa suldaan daarood weey booskaas aniga ii jooga wuxuu diiday been madow meel uu joogo inuu istaago waxaana la sheegay suldaanku inuu yiri ninka aniga garaadkayga caayay eegay oo waaridkii caayay wallaana meel isla taaganay biliya tolle in Suldaan Garaase meesha yimaado dani u yeero dhaa suldaan kaale adigu suldaanka la geeyo meesha suldaanku waa diiday wallaana tagin buu yiri ninka aniga garaadkayga caayay oo waaridkii caayay oo garaca ku sheegay wallaana ugu tagin buu xaasha lagu sawiri maayo horta dani waa ka qodobkayga labaad Saciid Cabdullaahi Daniyow inaad madaxweyne noqotid horta ha ku seexan maanta cidla taagan tahay
وانا كو عدينيا daarood maanta garabka uu ka baxay daarood Ismaaciil Reerkii loo oran jiray maanta horta garabkaaga waa ka baxeen ayadoo campaign la gaarin ayadoo xaalad dibadda weyn eeg inaad qof caadifiya tahay oo miskiin ah oo siyaasad waxba ka aqoon eegay waxaad jeclayd oo doonaysay oo raadinaysay harti inuu madaxa isla galo oo la iscaayo oo la isu guuxo oo waxa weeye harti jifi u kala fariisto balse maanta waxa alxamdulillah rabbil caalamiin ah in hartina maanta wada socdo wallahi shacabkii waa wada socdaan khaasatan dhulbaahanta iyo majeerteen waa wada socdaa dadku waa walaalo waa ehel eegay hadalkaagii iyo cunfigii waxaad doonaysay waxba uma dhimin ama ii door leef ama waxa weeye been madow soo kaxayso oo garaadka shalay caayay bal inaad damiir lahayn ma ku sheegaya inaad bila aqli tahay baan ku sheegaya inaad wax dhintay tahay baan daniyo ku sheegaya garaad jaamac garaad cali ilaahay ka sokow inaad madaxweyne Puntland ka noqotay isaga sabab u ahaa ninkii shalay ku dhisayay ee saa ku daba taagnaa ee waxa weeye harti oo dhan oo iyadoo lagu doonayn dadka qaar kood ay ka soo horjeedaan cid walba afka ka galiyay maanta ninkii hooyada caayay baad garowe roog cas u dhigtay oo tiraadaba hadal markaasuu intuu saa ku eegay ku yiri waxaan jeclaan lahaa inaan laascaanood qalbigiisu laascaanood buu jiraa inaan laascaanood sidan waxa iga sii qurux badnaan lahayd anoo laascaanood jooga buu ku yiri maanta xildhibaanadii mareexaan gacan kuma haysid oo wixii tii horaan hibanay iyo tanna may hortaala wixii afarmaajo ku dhigtay baan waxa weeye wali qora taariikhdu way taala xildhibaanadii dhulbaahanta gacan kuma haysid eegay oo waxaad samaynaysid waa la arkaa warsangal xildhibaanadooda gacan ku qaban meeshido ninkii ceer gaaba ka tanaasulay baa tahay markii caalamiska naga soo jeestay yiri ma looma baahne Soomaaliland way xaq iyo xuquuqdeeda heshaa xildhibaanada ogaadeen gacan kuma haysid oo bari hore dacarsa lagu mariyay xamso la arkay inuu waxa weeye aan waxba meesha la joogin oo ogaadeen arkay oo ogaadeen ka quusteen oo ogaadeen ka leexday ogaadeen wajiga ka dadbay baad adigu ku soo jeedis maanta laascaanood tahay baad dagaal iyo xifaaltan iyo waa waray iyo door leef bilowdo ogaadeenna maanta tunka ku qaateen ba xamsi iska dadaalo oo dhan maanta xamsi tunka ku sita waa ninka shalay la ogaa daalo oo dhan maanta xamsi tunka ku sita adaana sabab u ah waxaan maqal jiray wadkad korsatoy waqwaq ma ka yeedhay been madowgii aad leefleefaysay ee garaadkeena shalay caayay eegay isagoo libiya abaal toona kugu hayn buu ku yiri laascaanood baan ka jeclaan lahaa waxa u soo kacaysay oo ugu yeedhay oo waxa weeye inuu halka u yimaadana ay ka ahayd doqoniino kugu jirta weey iyo in hartimadaha isla galo oo ay dadku islaayaan oo la iscaayo laakiin macal asaf waxa ilaahay mahadiisa maanta eegay inaan social media wax ka qaylinayana aan jirin harti is haystaana aan jirin eegay dhulbaantii ma jeerteen is caayana aan jirin kugu koobaaban oo kuma soo dhaafto wax adiga kugu koobaaban inay tahay oo adiga adun baa cid istilay ada isku waraay horaana kugu sheegayo waxa la doqontu harkaa lagu xiriyo xusullada ku sidataa harkii lagu dil lahaa ee lagu marjin lahaa ee lagu daldal lahaa ada isdaldalay gacantaada isku daldashadaniyo waxa igu darnaa odagii madaxa caday juxe baan taagan rasuulay anu haka la socod baan ka jeclahay been maduna hatta nin yiraahda oriyaa waxaan ku sheegnaa anigu hadal baad hadda ka hor ka dhacay oo iskinkayga baad cayday golaad joogtay waxa weeye sagaaji xitaa nin xasuusiyada ila waxaan qalbadu leeyahay oo afku furan lahay hawiye iyo adigu la daniyo kala dhaqaaqde oo awal hawiye xildhibaanada hawiye inay ku siiyaan wax la yiraahdo doorasho xildhibaanaha hawiye eegay mar hore bay u cadeysteen wadadii qura ee aad haysatay iyo meeshii qura aad haysatay maanta iska soo afjartay haday ogaadeen tahay haday dhulbaahanta tahay haday magarasa warsageli tahay nimankii Axmed Harti ama Moorcase ama Dishiishana boosaaso banaankeeda ciidankii Dishiishe iyo ciidan dani wato baa soo fadhiya saacad allaaliye saacadii la doonay xabadaas qarxi karta wax kale la isku ma haysto waa dhul ina uga siyaasiin leeyahay oo gobolka bari la siiyay oo halka koronto in loogu sameeyo waqaf ahaan ina uga siyaasiin u bixiyay ayuu shirkad keensaday wiilkiisu u dhibtay
eeneeyo iyo golis iyo wiilkiisa boqolkiiba 22 uu dani leeyahay deema uga siyaasiyiin xidheen anagu hadii waxan ay bareefa tahay de anaga iskale dhulkayga bareefa tahay anaga shirkadda haaf qaadanayn oo markii hore waa bixisay daan waqfan u bixiyo gobolka bari in halka koronto looga sameeyo laakiin shirkad aad adigu leedahay wiilkaagu wato anagu ma ana bixin beedhe ar iyo wir ciidanka dishar meel yaado reebi bay fadhiyaan meel la 8 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso weey waa beerihii uga siyaasiin anytime bay xabadu bilaaban kartaa cidlu taagay Puntland cidlu ka taagan yahay dawladda hadii lagu doorto iska daa in lagu doortee haabkeeda hadaad soo gashidaniyo wax damaan sheegay waxba kama jiraan nasabnimada iyo gobonnimada iyo dhaqankeena iyo abtirkeena iyo sinjigeena kuma jirto war ma aniga maanta ninka boqor burhaan eegay hooyadii caay ba Boosaaso deeqay wiiman kara aniga oo ka soo day kara oo aan leefleefi kara war ma idin la tahay ugaaska mareexan ninka caay eegay inuu goldo qabtay karo war ma idin la tahay suldaan garaasa ninka caayo hooyadii eegay oo ilma sina ku sheega inuu Boosaaso deeqay iman karo oo aan loo qosli karo xaqi aw damiirka xaqi ka aadi garajaamac garad calimiyanu isinkaagi ahay halka waxa ku muuqanaysa inaad adoon tahay bilaad damiir ah oo aqli lahayn oo xayawaan ah oo micid inta dhar leegtahay oo xoolaha cawska ugu horeeya inaad tahay ba wallaahi billaahi tallahi cad uma baahna cadayn yuu yahay maanta ninka aqbalaya oo hartiya oo kabla laxa oo daarood Ismaaciila isim daarood leeyahay odaxno baastara oo beelow ah inuu waaridkii hooyada intuu caayo inuu gado iyo laas caanood iyo kismaayo ka dago cid sameyn kartaa ma jirto illa dani ba sameyn kara daniyow daaroodna kala dhaqaaqde hawiyana awalba waxa weeye wanaag kuma haynin raxan weynna mar hore kala dareerteen eegay nimanka ii doorna waa caadifi ii door waa caadifi eegay anytime bay isbedeli karaan sida uu barooranayo been madow uu leeyahay dhul bahantan ka jeclaan lahaa hadday xumaan ku bilaabatay karbaash haduu ku bilowday haddaad awooga fuudka la cabaysaa haddaan qiiq kaashidayna hadda labada dhugood ugu jarayo inta dib ku doono waxaan idinkaga tagayaa war